Salam alaikum. Salam alaikum. Today we're going to introduce you to some useful English phrases for when you go to the doctors. Maantay waxaan idin baraynaa Ingiriis idin anfacayo markaad dhakhtarka u tagtaan. This is for when you're feeling unwell, but it's not an emergency. You go to see your family or local doctor, who is often referred to as the GP. Tani waxaa waaye markaad xanuunsan tahay oo xanuun laakiin emergency uusan ahayn markaasaad waxaad aadaysaa dhakhtarkaaga dhakhtarka family dhakhtarka la leeyahay oo loogu waco GP-ga. The GP is the general practitioner, and he or she looks after all types of illness rather than being a hospital doctor or a specialist. GB waxaa waaye muxuu ahaay dhakhtarka caadiga waaye oo uu ka duwan yahay isbitaalka dhaqaatiirta iyo ama specialistayaalka uu ka duwan yahay. GB wuxuu ahaay waxyaabo badan loogu tagaa marka asaa dadka ugu gudbiyo meelaha kale oo dhan. When you go to the doctor's surgery, the first person you'll see is the receptionist. She or he is the person who greets patients and arranges the appointments with the doctor. Markaad meesha dhakhtarka tagtid qofka ugu horeeya oo aad arkaysid waa receptionka waaye kuwa receptionka nin ama naag wuxuu ahaadaba marka ayagaa ballanta kuu dhigayo dhakhtarka kuu diyaarinayo ballantiisa. When you get to see the doctor, he or she will say, "How can I help you?" Dhakhtarka markaad aragtid nin ha ahaado naag ha ahaado waxay ku leeyihiin maxaan kuu qaban karaa aan kaa caawin karaa. The doctor will say, "Please tell me what your problem is and please describe your symptoms." Dhakhtarku wuxuu ku leeyahay fadlan ii sheeg dhibaatooyinkaada ama problemka ku haayo iyo waxaad xanuunada aad dareemaysid. It is important to remember that the doctor has a limited time with each patient, usually only 10 minutes. So you must tell them just the main things that are wrong with you and don't get sidetracked by other things. muhiim waxaa ah dhaqaatiirtu waxay leeyihiin waqtiga ku yar 10 daqiiqo camal kaliya haystaan marka meelo kale ha ka faalaynin muhiim in aad ka hadasho xanuunka aad u timid kaliya. Video 2 about going to the doctor will follow shortly. Videoga labaad ee ku saabsan dhakhtarka aaditaankiisa wuu soo daba socdaa kan goordhow. Salaamu calaykum. Salam alaikum.